MCH-ka deegaanka Ceelbu ee gobolka Sanaag ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa la gaarsiiyay bukaanno kala duwan oo qaba xanuuno kala duwan. Dhanka kale, dad isxilqaamay ayaa waxa ay gaarsiiyeen agabyo kala duwan oo ay tilmaameen in waxtar ay u leedahay dadka bukaanada ah ee la geynayo xaruntaas. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga Axmed Canshuur. MCH-ka hooyada iyo dhallaanka ee degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag ayaa maanta waxaa soo gaaray dhakhaatiir markaasi gargaar degdeg ah soo gaarsiisay hooyada uurka leh iyo dhallaankeeda. ugu horeysna waxaa iga warbixiyay xaaladdan haatan ka jirta degmada Ceelbu gaar ahaan MCH-ka hooyada iyo dhallaanka. alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina mursaliin ma bacd. marka hore ku salaamaya wariye Cashuur inta ka bacdi halkan waa doctor oo xarunta caafimaadka magaalada Ceelbu waa Ceelbu Health Center waxa ka socota shaqo badan oo kala duwan shaqooyinka ka socda hadaan wax kaaga taabtay OPD-gi under 5-ki ofadi NC-gi PNC-gi talaalkii nutrition-kii noocyadiisa kala duwana yaabahaas oo dhan baa ka socda. waxaan u shaqeeyaa si toos ah waxa la furaa 7 subaxnimo ilaa iyo 2 maalinimo uu furan yahay. taabarkan ka gudbo waxay la shaqeynayay dhakhaatiir ka socota wasaaradda caafimaadka Puntland oo ay hogaaminayso Dr. Amaal Ibrahim oo ah isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag. markii ay dilaaceen xanuuno badan waqtiga roobaadka dabadiisii oo ay ka mid tahay shuban qandhooyin fara badan oo jira awgeed waxay u yimaadeen gobolka inay waxay ku soo kordhin karaan ku soo kordhiyaan. Dr. Amaal ayaa iga warbixisay iyaduna dhankeeda gargaarkan degdega ee hooyada uurka leh iyo dhallaankeeda ay markaasi ugu yimaadeen degmada Ceelbu iyo soo daaweynayaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta anoo ka socda wasaaradda caafimaadka Puntland waxaan u nimi maanta magaalada Ceelbu mashruuca wasaaraddu wado oo la taakuleynayso Ambicam hay'ad la yiraahdo UNFPA oo lagu caawinayo hooyada uurka leh iyo ilmaha 5 sano ka yar loo sameynayo daweyn lagu bixinayo alaab nadaafo talaal la bixinayo wacyigelin loo sameynayo maaragtay dhinaca tacadiga wixii jira maaragtay looga wacyigelinayo. marka maanta shalay baan nimi hawsha shalay baan bilaabnay dadkii si fiican baan ugu shaqeynay wixii uurka lahaa dadkii daawooyinka baa la siinayay dadkii oo xanuuno badan baa jira shuban iyo marka caruurta u badan yihiin iyo qandho waayeelkuna inuu saas kale waxaa jira iyaguna shuban ay ka cabanayeen dumarku dhig la'aan sheeganayay cudurro badan baa jiray wixii anagu markaan gacanta ku haynay free baa loo bixinayay wax lacag ma jirin oo hawayaan dadku loo shaqeynayay. haddana mar dhow hooyooyinka uurka lehna waxaa la siinaya kidad yar oo ka kooban duruuc iyo saabuun nadaafada iyo burushay wax alaab yar oo lagu taakuleeyo hooyada uurka leh laguna dhiirigelinayo inay ku xirnaato xarunta caafimaadka sida adeegyada muhiimka uga qaadato xarunta. talaalkii isagana waa siinaya TT-da kaga faa'iideysanayna hooyada uurka leh saan u siino waan wacyigelin baan siinaynaa naas nuujinta nafaqada caruurta insha Allah intaas oo dhan baan uga faa'iideynaa intaan magaalada joogno. Okay, waan gartay ma ku jiraan wax raga oo aad siinaysaan xanuunada kala duwan aad ka daweynaysaan haddii ay yimaadaan. dhakhaatiirta ka timid degmada Badhan ayaa iyaguna dhankooda ku wacyigeliyay hooyada sida naaska loo noojiyo iyo waliba markaasi nadaafadda guud ee qoyskeedu uu u baahan yahay marka ay xaaladda ay isbedesho ee biyuhu roobku ay da'aan ay yimaadaan cudurrada laga qaadi karo. ugu dambeyntiina waxay u qaybiyeen dhar markaasi loogu talagalay hooyada uurka leh inay ku umusho. naas nuujinta kaalina in ilmaha naaska la siiyo waxaa idinka ugu fiican in naas nuujin loo sheego hooyo uur leh baa ugu fiican waayo ma ogtahay hooyada uurka leh hadhow way qaadanaysaa wixii hore waa ka tageen laakiin kan insha Allah hadda ay wado way ka qaadanaysaa tusaalihiisii. hooyada uurka waxaa laga rabaa hadduu ilaahay raali ka noqdo marka uu dhasho ilmaha 12 daqiiqo ugu horeyso ilmaha in naaska la siiyo. naaska la siinay caanaha maxay yihiin marka ugu horeyso caana ma laha bay dhahan hooyadu laakiin waa caanaha dambarka loo yaqaan. dambarkaas waxay yihiin waa talaalkii ugu horeeyay ilmaha oo caafimaad buu ka helayaa sidii burkaanti oo kale caloosha safeynaya ilmaha markii mar baa ka imanaya. waa talaalkii ugu horeeyay caafimaad ugu horeeyay hooyadu waxa weeye marka ay dhasho in naaska la siiyo. jirta macnaha nadaafad iyo hygiene kan
goorma iyada la sameynaya shan kaliya haddii la sameeyo ilmihiina ma shumaya hadda idin sheegaya sidee loo sameynaya waxaa loo sameynayaa maxay ahayd tool marka ilmaha saxarada laga mayro waxba ma naqaanide waan ka meernay biyo cad baan ku farxashanaa anigu nadiif baan ahay aan cuntadii baan ku siinay xaarkii iyo gacmeen ka waa qalab marka ilmaha saxarada laga mayro marka adiga suuliga gasho marka cuntada la diyaarinayo marka cuntada la siinayo oo macnaha dadka loo diyaarinayo iyo marka cuntada la cunayo shantaa jeer haddii faraha saamuun ama dambas lagu mayro maxay ahayd toole waxay ka gaaraysaa guur oo shuban ma dhacayo uur kale ee xaamilada leh alaabatan ay u baahan tahay MCH-ka hooyada dhallaanka ee degmada Ceelbo uu qaybiyo waa Axmed Cabdilaahi Ciise Axmed Cashuur telefishinka caalamiga Soomaali News TV degmada Ceelbo ee gobolka Sanaag.